وعنا wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada wararkii ugu dambeeyay uu idin hayo calanka TV qodobada aad ku daawan doontaan barnaamijkeena habeenimada waxaa kamid ah Kenya oo shidaal baaris ka bilowday Lamu oo horay Soomaaliya loogu xukumay madaxweyne Farmaajo ciidanka heegan galiyay xilli rooblo oo khilaaf siyaasadeed iyo cadaadis ku haya madaxweyne Farmaajo iyo kulan degdeg ah oo madaxweyne Farmaajo iyo Erdogan qadka taleefanka ay ku yeesheen iyo waxyaabaha ay ka wada hadleen ayaan barnaamijkeena habeenimo ku qaada dhigi doonaa maamulka gobolka Banaadir oo war culus ka soo saaray dhaqdhaqaaqa mucaaradka dowladda federaalka oo doonaya inay magaalada Muqdisho mar kale qas ka sameeyaan safiirka Imaaraadka u fadhiya Soomaaliya oo qaar ka mid ah maamulada mucaaradka la kulmay iyo amar laga soo saaray inuu samar dambe la kulmin karin siyaasiyiin aan ka tirsanayn dowladda dhexe maadaama uu ku xadgudbayo qarannimada ummadda Soomaaliyeed wararka xiisaha badan ee aan caawa idin haynana waxaa ka mid ah siyaasiyiin ka tirsan xafiiska Rooble oo loo xiray musuqmaasuq iyo hub sharci darro ah oo ay dalka soo geliyeen iyagoo isticmaalaya awoodda dowladnimada qodobada iyo kuwa kale oo xiiso badan ee barnaamijkeena habeenimo ku daawan doontaan fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato channelkeena subscribe doo furo gambaleelka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyada aan sida maalinlaha ah u soo gelino Kenya oo shidaal baaris ka bilowday Lamu oo horay Soomaaliya loogu xukumay iyo madaxweyne Farmaajo oo ciidanka heegan galiyay xilli Rooble uu khilaaf siyaasadeed kala dhaxeeyo cadaadisna ku saarayo in madaxweyne Farmaajo laga tuuro kursiga sida maanta lagu daabacay wargeyska Business Daily Africa waxaa Kenya ay bilowday baaritaan shidaal oo ku jira xeebta gobolka Lamu xogta uu faafiyay warsidaha ayaa lagu tilmaamay in aaga Lamu bisin shidaal baaris ka socoto xilli maxkamadda ICJ ay sanadkii hore u xukuntay aagaas dowladda federaalka ah ee Soomaaliya gudoomiyaha batroolka u qaabilsan Kenya James ayaa sheegay in shidaalka la siiyay qandaraaska shirkadda baarista ee Eni Kenya Business Venture oo hore u ahaan jirtay Ajib ay bishii hore ka bilowday qodista ceelka Melima 1 lakabka loo yaqaano L11B tan waxay daba socotaa sahano seismic ah oo daaha ka qaaday in aagu leeyahay awood shidaal iyo gas shirkaddu waxay rajeynaysaa inay soo saari doonto natiijooyinka kaydka ee lakabka marka la eego karti xirfadeedka labada bilood ee soo socota baaritaanka ceelka ayaa la sameeyay December 28keedii 2021 waxaana la filayaa inuu socdo 2 bilood Master James ayaa u sheegay Business Daily Africa saamiyaasha saliidda iyo gaaska waxay isticmaalayaan sahanada loo yaqaano seismic si ay u soo saaraan sawirro faahfaahsan oo ku saabsan noocyada kala duwan ee dhagaxyada iyo meesha ka hooseysa oogada dhulka si loo go'aamiyo goobta iyo xajmiga kaydka saliidda iyo gaaska ee suurtagalka ah dhulka ay baarista shidaal Kenya ka bilowday ayaa ah meeshii loo xukumay Soomaaliya taas oo baraarugsanaan aysan ka jirin dhinaca Soomaalida oo madaxdooda uu khilaaf xoogan ka dhex jiro ra'iisul wasaare Rooble oo dhowr bil ka hor Kenya u tagay safar ay iskula dhaceen madaxweyne Farmaajo ayaa hadda cadaadis siyaasadeed iyo mid toos ah ku haya madaxweyne Farmaajo iyadoo hadda Kenya ay u soo qabanqaashatay inay shidaal ka qodato dhulka loo xukumay Soomaaliya madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya madaxweyne Farmaajo ayaa la sheegay in caawa ciidanka xoogga dalka uu heegan galiyay wuxuuna codsi u diray ciidanka ku sugan Balidogle ee danaba xilli shalay dowladda Soomaaliya ay xub xoogan kala soo degtay dekedda magaalada Muqdisho hubka ayaa la sheegay inuu ka soo gaaray dhanka dalka Ukraine arrinta oo u muudid inay tahay mid la isku soo aadiyay ayaa hadda soo shacabxday xarumaha ciidanka xoogga dalka ayaa laga dareemayaa caawa dhaqdhaqaaq xoogan xilli Rooble iyo mucaaradku qorsheynayaan inay Muqdisho ka abaabulaan banaanbax ay sheegeen in looga soo horjeedo madaxweyne Farmaajo madaxweynaha ayaa sida la sheegay maanta qadka taleefanka kula xiriiray madaxweynaha Turkiga oo isaragii ugu dambeeyay heshiis hub oo Kenya iyo qaramada midoobay ka xanaajiyay ku soo kala saxiixday kulanka madaxweyne Farmaajo iyo Erdogan ayaa la sheegay in looga wada hadlay in hubkaasi oo 2 milyan ku kacaya si degdeg ah dalka loogu keeno sidoo kalena ciidamada qaranka ee tababarka u jira Turkiga degdeg loogu dhameeyo tababarkooda kuwa cusubna loo qaado warbaahinta Kenya ayaa arrinkan aad uga hadlaysa iyagoo walaac ka qaba tallaabada uu qaadi doono madaxweyne Farmaajo iyo in falka Kenya looga jawaabi doono tallaabo military Soomaaliya iyo Kenya oo dhawaan ahaa laba dal oo daris ah aadna xiriirkooda u xun yahay ayuu hadda ka sii darayaa sida la sheegayo madaxweyne Farmaajo oo cadaadis gudaha la kulmaya ayaa doonaya inuu tallaabo military ka bixiyo kadib markii ay bilo ka hor tijaabo culus dhex martay isaga iyo dowladda Kenya Soomaaliya iyo Kenya
ayaan weli si toos ah dagaal u dhex marin taariikhda Soomaalida balse hadda ay qarka u saaran yihiin ciidan ahaan labada dal wax quman isma dheera balse sida wararku sheegayaan Kenya ayaa ku xoogron dhanka ciidamada cirka maadaama ay haystaan diyaarado balse madaxweyne Farmaajo ayaa rajo fiican ka qaba in ciidankiisu ay baajin doonaan in Laamu laga qodo ceel shidaal maadaama maxkamadda ICJ ay u xukuntay Soomaaliya dhanka kale dowladda federaalka Soomaaliya ayaa awood u leh inay adeegsato hub walba oo gacanta u soo gala walow qaramada midoobay ay u diideen in Soomaaliya aysan hub soo gadi karin maadaama uu saaran yahay cunaqabateyn dhanka hubka ah madaxweyne Farmaajo ayaa wajahaya cadaadis gudaha iyo mid dibadda ah sidoo kale wuxuu Kenya uga adkaaday bilihii u dambeeyay inuu baajiyo qaadkooda isagoona baahi iyo dhibaato geliyay qaar ka mid ah gobolada dalka Kenya xiriirka Soomaaliya iyo Kenya oo xumaa ayaa hadda faraha ka sii baxaya xilli ay Kenya baaris ka wado qayb ka mid ah gobolada dalka Soomaaliya dhanka kale maamulka gobolka Banaadir oo war ka soo saaray dhaqdhaqaaqa mucaaradka dowladda federaalka oo doonayay inay magaalada Muqdisho mar kale qas ka sameeyaan gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho Cumar Maxamuud Cumar Filish ayaa maanta shir gudoomiyay kulan aan caadi ahayn oo ay goobjoog ka ahaayeen gudoomiyaasha degmooyinka gobolka Banaadir iyo saraakiisha laamaha ammaanka qaybta guud ee gobolka Banaadir gudoomiyaha Cumar Filish ayaa si adag ugu hor yimid banaanbax ay abaabulayeen mucaaradka kaas oo qorshu yahay inuu ka qabsoomo magaalada Muqdisho maalinta Khamiista ah wuxuu sheegay in xilliga magaalada Muqdisho aysan xamili karin culaysyo hor leh isagoo banaanbaxa abaabulkiisu ka socdo ku tilmaamay mid foodo ah oo ka dhan ah amniga caasimadda sidoo kale waxa uu faray saraakiisha amniga inay xoojiyaan amniga caasimadda dalka ee Muqdisho wuxuuna ku baaqay in bulshada kala shaqeeyaan amniga iyo nabadgelyada gudoomiyaha ayaa arrinkan qiil weyn uga dhigay in heshiis laga gaaray midmadowga ka jira doorashooyinka iyadoo dhankooda ku qanceen mucaaradka inkastoo banaanbaxan uu yahay mid ka dhan ah madaxweyne Farmaajo iyo shaqo joojintii Rooble uu ku sameeyay 27 bishii December ma ahan markii ugu horeysay ee maamulka gobolka Banaadir uu si cad uga hor yimaado banaanbax ay mucaaradku qorsheynayaan inuu qabsoomo Khamiista iyadoo laba maalin ka hor uu gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda gobolka Banaadir Cali Yare uu ku dhawaaqay in magaalada aan laga qaban karin banaanbax aan fasax looga haysan maamulka gobolka Banaadir mas'uuliyiinta raacsan madaxweyne Farmaajo ayaa xilligan ku howlan baajinta dibadbaxyada maadaama ay aad uga soo horjeesteen in magaalada Muqdisho markale ka dhacaan rabshado saameyn ku yeesha xaaladda amni iyo muddo nololeed ee caasimadda dalka mucaaradka ayaa raadinaya wado walba oo ay dalka qalaas ku gali karaan maadaama madaxweyne Farmaajo ka soo xiray wadadii ugu dambeysay kadib markii uu xalay u jeediyay khudbad biyo dhaceedu ahaa in madaxweynuhu uu soo dhaweeyay go'aanka madasha watashiga qaran ee arrimaha doorashooyinka dalka halkaa waxaa inooga eeg wararkeennii habeenimo fadlan daawada haddii ay tahay marka koowaad aad soo booqato janaalkeena subscribe oo faragan bareerka si aad u noqoto daawadaha koowaad ee barnaamijyadeena